madaxweynaha jamhuuriyadda, ra'iisul wasaaraha xukuumadda, mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye ee ku howlgala caasimadda dalka ayay kulmisay madashan oo loogu dabaaldegayay guushii taariikhiga ahaa ee dalkeena looga qaaday cunaqabateynta hubka ee saarneed in ka badan 30 sano isla markaana loogu mahad celinayay dowladihii codkooda ku taageeray go'aankan dhaxalgalka ah. madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu mahad celiyay dhammaan dowladihii taageeray go'aankan garab istaagay u muujiyeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa dul istaagay halgankii dheeraa ee loo soo galay gaaridda guushan dhaxalgalka ah. ahmiyadda go'aankani uu leeyahay xaqiijinta Soomaaliya xor ka ah argagixiso iyo qorshaha dowladda ee ilaalinta hubka. sanadkii 2016 doorashada markaan qaban qaabinaynay slogan jira aan lahayn. slogan-kaas muxuu ahay? qabyo qofkeeda dhameystira. soo hadda qabyadii oo ma wax soo wada dhamaanayo kulli. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hawlo badan oo rag iga horeeyay ay soo bilaabeen inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba hawlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhamaaday ama qaar ay dhamaanayaan waqtigii dawladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay ayadana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale ku bogaadiyay madaxdii iyo hay'adihii dawladda federaalka ee kaalinta ka qaatay gaaridda natiijadan muhiimka ah ayaa xusay in dawladdu ay si dhameystiran u qaadanayso mas'uuliyadda ilaalinta hubka iyo inaan loo adeegsan wax ka baxsan xoreynta iyo difaaca qarannimada Soomaaliya. shaqadan la qabtay haday tahay ku biirista suuqa Afrika haday tahay cunaqabateynta ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhamaatay. shaqo soo socotay dad kala duwan xukuumado kala duwan hogaamiyaal iyo madaxweynayaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen qaarkood ay wax ka soo qabteen meesha blokeeti la soo dul saaray ayaa meesha ugu yimid. waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhamaanin cunaqabateynta hubka waa la qaaday mas'uuliyad cusub ka dhalatay. dawladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay'ado cusub oo hadda dhalanayo waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa ka soo dawladda ah leh lakabyada dawladda kala duwan oo dhan oo mas'uul ka noqon doona meesha maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aankan ku tilmaamay mid taageeraya dawlad dhiska iyo horumarinta dalka iyo in sidoo kale waqti kooban looga adkaado kooxda qawaarijta ah ee Al-Shabaab. haddii aan rabo inaan cabiro Soomaaliya siday tahay waxaan ku cabiri lahaa guri weyn oo balkoonka meesha hore ama laga soo galay albaabka hore uu nal weyn ka daaran yahay laakiin ka kooban qolal waaweyn oo fara badan oo kulligood nalkooda wada dansan yahay. qolka laba qol oo kasta waxa u dhaxeeya darbi weyn oo aad u adag oo shub ah oo in la dumiyo oo aad nal qolka kala gaarto ay kugu qaadanayso inaad horta darbigan dhagaxa oo waliba shubka aad dumiso. marka waa inaad saad gudaha u soo gasho horta aad darbi weyn soo dumiso. markaad gudaha soo gasho hal qol baad soo galaysaa halka qol nalkiisa daaraysa uu daarmaya marka kadibna waxay kugu qaadanaysaa saad qolka kale u gaarto inaad haddana darbi kale sii dumiso marka asana kaas daaraysa. sidaas aad ku soconaysaa ilaa 20kii qolba aad wada daarto. annagu sidii aan ku soconnaa guri saasaan ku jirnaa mar kasta oo aan achievement samayno noocan oo kala waxay ku tusinaysaa inaynan si bilaash ku imaan. waxay ku timid in darbi weyn oo waliba Soomaalida kaliyeed ay jabin weysay oo ay international partners kulina jabiyeen iyo friends ayaan markasta jabinaynaa. marka nalkaan daaraynaa waan sii gudbaynaa dhibaato badan baa haddana naga sii qabsanaysay dhidid badan haddana ka kalaan gaaraynaa waan daaraynaa haddana ka kalaan sii gaaraynaa waan daaraynaa ilaa finally 20ka qol ee aqalka uu ka daaran yahay dhammaantood ka kooban yahay aan isu furno isla markaana nalalkii aan daarno. marka waxaan rajaynayaa madaxweynaha asagoo ku mahadsan runtii Soomaalida uu tusay dariiqaas ayuu nagu hogaaminayaa. waxaan leeyahay marka jidkii waan haynaa laakiin ma fududa waa arrin u baahan shaqo badan
middanna runtii shaqo badan ayaa loo soo galay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha runtii oo dadaal badan geliyey dalkana ku hogaamiyey dariiqa saxda. qaar ka mid ah safiirada dowladaha caalamka oo iyana munaasabadan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay go'aankan taariikhiga ah iyaga oo tilmaamay inay diyaar u yihiin inay Soomaaliya ka taageeraan arrimaha la dagaalanka khawaarijta iyo sidii muddo kooban amniga dalka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qaranka Soomaaliya. go'aanka taariikhiga ah ee golaha amniga Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa dalkeena uga dhigan guul muhiim ah waqti dalkeenu dagaal adag kula jiro kooxda khawaarijta ah ee gobolkeedu sii dhacayo. sidoo kale go'aankan ayaa qayb ka noqon doona dhismaha ciidamo tayeysan oo horumarsan oo dalkeenu mar kale yeesho. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.